barasaabka gobolka Hawd Axmed Ciga Maxamed ayaa maanta soo kormeeray dhismaha jidka isku xidhan magaalooyinka Balligwelle iyo Hargeysa kaasi oo gacanta lagu hayay muddooyinkii ugu dambeeyay dhigista iyo dhamaystirka wajiga ugu dambeeyay ee caratuulka wadadaasi isla markaasina la dhamaystiray guud ahaan caratuulka wadadaasi. barasaabka gobolka Hawd ayaa kormeerkaasi kadib waxa warbixin ka siiyay dhismaha wadadaasi injineer Cabdiraxiin Cabdullaahi Haybe oo isagu ah injineerka gacanta ku haya wadadaasi. haddii aan warbixin yar kooban ka bixiyo wadadani waa 750 kilomitir marka laga reebo labada council dhulka ay maamulaan councilka Balligwelle iyo councilka Hargeysa 750 ka maanta 8 kilomitir oo asfal ku saarnaa marka laga reebo 49 kilomitir muddo sanad iyo bara oo aan wadnay maanta ay dhamaystirtay leeriska yaalo wadada haddii aan idin ku daray imaka la dhigay oo formationkii subgrade-kii iyo subbase-kii only waxa uu dhiman base course-kii iyo weerankii insha Allah ta'ala labadana waa la dhigaya. halkan waxaan uga mahadnaqayaa oo aan uga mahad celinayaa cid kasta oo wadadan wax ku darsatay mar labaad mar saddexaad ba gudoomiyaha ayaan soo dhaweynaa waqtigiisa qaaliga ah soo siiyay. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen xogayaha dawladda hoose degmada Balligwelle Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar iyo xogayaha gobolka Hawd Maxamed Faarax Sugaal iyo xubno kale. mudane gudoomiye wadadanu maamulkayga degmadu qayb weyn oo laxaad labaan ka qaadanay haday noqoto xagga gaadiidka haday noqoto hanti aan u hurnaba maanta ilaahay ma hadii way soo gaadhay halkan u doonaynay caratuulkii waan isku xidhnoo maanta waynu taaganay aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qof kasto ka qayb qaatay. maanta waxaynu halkan u joognaa isku xirka wadada Hargeysa ilaa Balligwelle oo maanta gabagaba ah caratuulkeed anigu halkan waxaan dardaaran uga soo jeedinayaa labada degmo ee degmada Sayla iyo degmada Balacbane haddii magaalada caasimadda ah ee gobolka Hawd ee Balligwelle ay dhisanto waxaynu ogsoonahay in magaalooyinka kale ee Sayla iyo Balacbane ay dhismayaan. waxaan halkan aan ka dhiirigelinayaa in ay laamida wax ku soo darsadaan qurbo joogooda iyo qolqol joogooda. gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Hawd Axmed Ciga Maxamed. waa farxadii aniga inaan maanta oo labadii lowdhe ugu dambeeyay la dhigayo inaan kormeerinu ku imaado in kala qayb galo aad iyo aad ba nasiibkaygu fiican yahay. ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaan ka bariyaa in iyadoo laamiyana dadka xariga ka jaraya aan ka mid noqdo insha Allah ta'ala. waxaan u mahad celinayaa dadweynaha gobolka Hawd qurbo joog iyo qolqol joog ee dhaxda u xidhay inay wax qabadka inta leeg ay ka howlgalaan. waxaan u mahad celinayaa xukuumadda Soomaaliland khaasatan hay'adda wadooyinka waxaan ballan qaadayaa insha Allah ta'ala inaynu halka iskala qabsano hadda mashruuca wadada aniga barasaabkii gobolka ayaa ku soo biiray anaynu ku hogaaminay hadayna qolqol joog iyo qurbo joog halkaas aynu insha Allah ka dhaqaaqaynaa qaaraanka 1 iyo 2 aniga iyo mas'uuliyiinta dawladdu inay haday hore u bixin jirin haday bixiyeenna waa sadaqa tujaariya waa khayr hadii kalena heer degmo iyo heel gobolba inaanu si weyn oo mugla uga qayb qaadano. waxaan iyagana u mahad celinayaa dawladda hoose oo qalabkeedii iyo booyadaheedii iyo cagafyadeedii kaga howlgashay arrinkan oo halkaas soo gaarsiisay maayarkeeda iyo xogayaheeda iyo howlwaladeena kale aad iyo shaqaalaha kale aad iyo aad baan u mahad celinayaa. waxaanu leenahay wixii lagu hamiyo ee la isku raaco taa maanta oo kale ayaa asal ka noqota aad iyo aad baad u mahadsan barbarkee ka baxda waa bakayla qaleen. Maxamed Jiciir Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligwelle.